taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee deegaanada iyo gooriisa Makaab Daarasalaam ayay ku soo bandhigeen shaariciyada waaweyn ee deegaanadaasi taageeradii abid ugu tirada badneed ee u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoona ku dhawaaqay kelmadaha ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xisbiga isbeldadoonka iyo rajadoonka Soomaaliland ee wadani waxayna socod lagu ku soo mareen shaariciyada waaweyn ee deegaanadaasi sidoo kale waxa deegaanadaasi ka dhacay munaasabado balbalaaran oo ay qabsadeen taageerayaashaasi halkani waa degmada Yagoori ee gobolka Sool waxaana munaasabad balaaran soo abaabulay ururka haweenka degmada Yagoori ee Himilo iyagoona si buuxda ugu biiray una taageeray xisbiga mucaaradka ee wadani waxa munaasabadaasi ka qayb galay haweenkaasi ay ku soo bandhigeen taageerada ay u hayaan xisbiga wadani gudoomiyaha gobolka Sool ee xisbiga wadani maayirka hore ee degmada Laascaanood Cismaan Saleebaan Jaamac abasaraan halka kan waxaan isugu nimi inaanu xaflad ku qabsano bahweynta haweenka degmada Yagoori ee ururka haweenka ee Himilo waxaanu nahay xisbiga wadani yaan loo firin wadani in cid kale ka maqan tahay degmada Yagoori waad arkaysaan indhihiina idin macallina degmada Yagoori dadkii joogay mid weyn iyo mid yar maanta waad arkaysaan dadku indhihiisu wax ku arkaya been lama alaakoodso caruur meel lagama keeno waa kuwa dadka yagi degmada Yagoori dadkii u dhashay oo la wada garanayo oo ururkii haweenka oo waaweynkii leh oo kuwii dhexele oo hablihii leh waad aragtaan maanta halkan waxa sharaf weyn inoo ah inay hooyooyinkii degmada Yagoori ay halkan dhamaantoodba ay ku sugan yihiin iyagoo hil iyo hoob la garab taagan inay ku caawiyaan muruqooda iyo maskaxdooda inay ku caawiyaan xisbiga wadani shalay iyaga oo koox yar intay ka soo kaxaysteen Laascaanood bay halkan noogu yimaadeen ila hogaaminay waa maayirkii degmada wuxuu inoo sheegay wax qabad 12 sano ee uu halkan maamulka ka ahaa ciid kala miis baan idin keenay buu yiri intaas wuxuu ka dhigtay reason aanu malaynaya waliba taasi maamulka kulmiye kama soo bixin hay'ado caalami ayaa keenay wax kale oo maanta inoo sheegtay shalay markuu halkan ka hadlayay ma jiro waxaad marxaati ka tihiin oo madaxda heer gobol halka fadhida marxaati ka tahay oo madaxda heer qaran ee xisbiga wadani marxaati ka tahay in Yagoori wadani tahay waxaan leeyahay ninkii la Yagoori wadani ma ahow oo marba filin beena duubayo waa inoo 13 November warnina dumiya miyanu u baahanahay uma baahnin nin dhisaynu u baahana ninka wadanka dhisaya ee dawladaha afyaqaan ee diblomaasiga waa wadani waa Cabdiraxmaan Ciro waxaan aad uga xumaaday qoladii kulmiye oo taliye mahad cambaashe ku eedaysay oo ugu hambalyeysay inuu kulmiye taageero oo kulmiye wax badan u qabtay aan waxaan leeyahay xaasha mahadarinta ma gayo mahad waa nin sarkaala waa nin dalkan wax badan u soo qabtay waa nin ciidana nin siyaasadda ka madax bannaan weeye arinta waxaan leeyahay kulmiyow xaal mahad cambaasha laga siiyo waxaanu ballan qaadaynaa waxbarashada inaanu tayeenno waxaanu ballan qaadaynaa ururada haweenka inaanu guri u dhisno haweenku leeyahay oo ay ku shaqeeyaan oo xafiis loo qalabeeyo waxaanu ballan qaadaynaa garoonkii kubadda ee stadiumkii oo taarbuunkii leh oo dhammaystiran oo la mida muxuu ahaa garoomada magaalooyinka in Yagoori laga dhisaano ballan qaadaynaa waxaa leeyahay habar aan uusan jirin hadday uunsato meel aysan ka guban jirin bay ka gubataa waxaan leenahay meel aadan ka guban jirin ama si aadan u dhici jirin baad u dhacaysaa haddii aan leedno xirsiyeena khaliifna daadax muwaadin aan codayna soo bax shacabo wixii xunba ka banax mujaahidka warkiisa ka bax cirraa inaga mudantix inaanu guridna sanduuq cod heestuna sidaasay ku tahay gaagax ogtiinba shalay toole waxaa la keenay degmada dad laga soo roray gobol kale dadaan dadkii degmada ahayn inaad wadani tiin oo maanta cid kale ay tarixin oo gobol kale la idinka soo qaadin way caddahay saad ogtiin xusbiga kulmiye shaqaalihii dawladda wuxuu ugu hanjabayaa haddaadan dad ii keenin shaqadan ka heriya aareedu leeyahay haddaydan loo codayn oo kaambeynka gelin magaalada waad ka guuraysaa joogi maysaan waa kalsooni darro kulmiye xalay wuxuu ina tusay 10 qof oo ay gaari ku sitaan oo shaqaale ah waa shaqaalahooda dadka waa la is wada garanayaa reer Laascaanood inta shaqaalaha bay soo qaataan laba gaari bay u sida waxa lagu daba qabtaa filim waagii Siiraayo murashax ahaa ayaa lagu soo daba qabtaa oo ma garanaysaa iyo 10 qof baa la isku daba qabtaa waxay ka dhigayaan in dad badani meesha marayay
yagoori baa laga dhigay dadka laakiin waxba kama jiraan yagoori dadkeeda waa la wada garanayaa waa wadani isku soo wada duuba waxaa maalmihii ugu dambeeyay deegaanadani ka dhacayay taageero ballaaran ay u muujinayaan shacabka ku dhaqan deegaanadaasi iyagoon u kala hadhin xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasna sheegay cod iyo cududba la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani Samiir Saciid Bile Bulsha TV Laascanood